السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب قالي ملك استاجبتين سودي هذا channel كيني حرونتا Cuntada Cafimatka ولا شيء شكري آدم بوله ما ضحروا topic مسعشر سدا وقانتين مهمة وحياة بدن ليجي سويدي وأنا كوس أبصن لنا عدو مركا يا رب الكسدايا محاوي مكتوبي توبيك حواي وبعدين عادة ومركا قبلها لوحة نصنايو وحيالها كينا xanuunkaas iyo asmaamaha fudud uga bixi kartid aan rabaa inaan halkan soo daayo iyo cuntooyinka la rabo inaad qaadatid oo ka caawinayo dhinacaas marka caadadaas waxay u kala baxdaa xanuunka u keenta dhinaca dumarka waa primary iyo secondary waaye marka primaryga iyo secondaryga waxaan rabaa inaan kala qaado aan ku hormarno primaryga waxa waaye maxaa keena waaye primaryga oo gabadhaas caadada xanuun badan u dareemaysaa qaar waxaan ka hadli doonaa iyadana insha Allah waxyaalaha red flagka ama calanka guduudka ah oo kaarka guduudka haddaad isku aragtid waxaas inaad dhakhtar u carartid because waxyaalo waxaa jiro fududaysan karin soo marka waxaa la dhahay waxay noqon kartaa lahay qofka marka oo hadda waxaan ka hadlaynaa secondaryga iyo waxaa waxaan waa primary iyo secondary aan kala dhahay soo marka labadaba way kala daran yihiin primaryga waa ka zaa'idka ah secondarygana waa ka caadiga labaad soo galaayo soo marka waxaan rabaa inaan weydiiyo maxaa reasonkee ayaa keenayo mise maxaa sababay inay qofka gabadha dumarka inay xanuunadan ee dareento markay caadada helayso marka waxaa la dhahay waxaa keena la dhahay caadooyinka marka gabadha waxaa keena la dhahay waxaa keena la dhahay af Soomaaliga dhinaca iga galaysa asxaabta ay soo sixi kartiin si dhinaca dumarka waxaa keena la dhahay haddii gabadha gaarto 20 sano 20 gaarto waxaa la xanuunkaas u keenaya la dhahay waxaa kale haddii iyadii oo gaarin maxaa la dhahaa adolescence waxaa waaye puberty haddii ku gaarto 11 sano wixii ka yar 11 sano wixii ka yar haddii caado ay ku qaangaarto ay caado ku hesho iyadana xanuunkaas uu ku dhacayaa waxaas oo hadhow mindhicirka xanuunka iyo maxaa la dhahaa xanuunkan ee marka gabadha caadada ay marayso iyadana uu ku dhacayaa la dhahay because age-keedii si fiican u korin ayuu dhigi ay qaangaaraysaa soo iyadana waxaa la dhahay waa helaysaa la dhahay waxyaalaha kale keeno familkiina haddii uu genetic family yahay uu waxaas yahay ka imaaday dhinaca familka iyadana wuu ku dhacaan haddii hooyadaas soo lahayd ama ayeeyda ama habriirta adigana wuu kugu dhacayaa xanuunka oo periodka zaidka qofka xanuunka waxaa keeno kala la dhahay haddii qof mandoorid leeyahay ee tahay because hadda rag kama hadlayno waa dumar ayuunba caadada hela raay samaaha soo haddii qof tahay sigaarka cabta qamrada waxaas iyadana isku arki doontaa maxaa la dhahaa xanuunka waxaas ayaa keena la dhahay waxaa kaloo keena la dhahay haddii uu caadadaada aad u badan tahay zaa'id dad waxaa jiro hal mar daqiiqad caadadeeda waxay iska bixinaysaa 300 ma astaghfirullah 4 like maxaa la dhahaa tamboniga bixinaysa maanta oo dhan iyadana way keentaa hadda isku aragtid xanuunkaas oo leedahay way keentaa lahay waxaa kaloo keena irregular period hadduu dhiigaaga qalqalsan yahay uu dhigyahay dhiig saxa oo haddii lagugu talagalay saakol 20 tahay ama wareegaaga uu yahay 25 mar imaado mar imaado gadaal uu dhiigaaga uu qalqalsan yahay caadadaada xanuunka dadkaas iyagana way keentaa ayaa lahay haddii waxaa la dhahay qofka uu ilmo lahayn qof ilmo lahayn weligiis ilmo helin uu yahay isna xanuunkaas way keenaana dhahay haddii xitaa oo waxaa la qofka oo waxaa la dhahay hormoneska uu ka qalqalsan yahay isagana way keentaa soo hadda waxaan ka hadalnay reasonka keena waxaa qofka xanuunka u keena caadada in ku xanuunsado soo waxaan reason hadda isku aragtid ama 2-3 isku aragtid ugu reasonyaashaas ay keenaan waxaas marka sida ugu sii guud baxinaysan waa sii guudagayna soo dhinaca marka medicalka ma galaayay aniga waxaan galaayay dhinaca sida fudud iyo waxa keena iyo dhinaca oo cuntada iyo dhinaca uga bixi kartid aan rabaa inaan halkan ku soo daayo soo marka waxaan rabaa inaan u sii guud galo sidee ayaan maadaama caadadii waxaas keenaan reasonyaashaas ama aad ku aragtid reasonyaashaas keenaan sidee ugu guud baxaya iyadoo natural ah ayaan rabaa inaan halkan ku soo daayo marka waxa uga bixi kartaa ayaa la ugu horeyso waxa la dhahay
gabdhaha walaalayaasha ayaan la hadlayaa waxa ayaa uga bixi kartaa sida hadda waxaan usii guudagalaynaa oo ku caawinaysa xanuunahaas bas maxaa la dhahaa treatmentga ama daawadii ama sidii naturalka ahayd xanuunkaas iskuga daawan lahayd ayaan usii guudagalaynaa ta ugu horeyso waxaan dhahayaa baashaan hadda haysatiin guryihiina hayna yaala dadka xanuunkaas qaba waayo actually kan bili keligiis ma loo isticmaalo inaa meelo kale dhabar kala saartaa xitaa soo marka kan markaa biyiinta qandac kasoo buuxsatid waan idin tusi doonaa insha allah ayaan kusoo dari doonaa isagoo muuqaalisa u fahantiin waxaa la dhahay jirkaaga toos uu haw saarin laakiin markaa meesha hasaarsi mindhicirka maraha kaa xigto maryahaaga ama baatigaaga qabtid biyo kasoo buuxsa oo qandaca saar ha kuu saarnaato marka waxaad dareemaysaa waa sida naturalka uga bixi kartid ayaan rabaa maxaa la dhahaa relief xanuunka ayay kaa caawinaysaa waxaa kaloo fiican la dhahay maxaa la dhahaa inaa masaaj garaysid ama masaajing waa kasisiin soomaalida maxaa la dhahaa diliiga dhabarka gadaal ama mindhicirka si tartiib ah inaa u masaaj garaysid lagaa rabaa iyadana way caawisaa waxaa kaloo fiican inaa qubaysatid ku qubay markaa xanuunkaas aad dareemaysid aad u xanuunsan tahay oo caadada saas oo kale aad dareemaysid inaa qaadatid biyo qandaca ku qubaysatid ama haddii kale dahaysid taabkii lagu seexanay inaa ku seexatid cabaar a ku joogtid iyaduna way kaa caawinaysaa oo si fiican aad dareemaysaa waxaa kaloo fiican ayaa la dhahay inaad samaysid exercise ayna way dhasaya exercise anaaba xanuunsan exercise gabdhan ka hadlaysa maxay maba istaagi kariye ayna oo ku fahmaya exerciseka waxaa waaye sometimes yoga la sameeya yoga maxaa waaye yoga saan intaad fadhiisatid oo saan lugahaaga asaan dhexdid just neefta hoos u diraysaa marna kor usoo bixinaysaa iyadana way ku caawinaysaa si fiican ayaad dareemaysaa marmarka qaarkiis waxaa sameyn kartaa because dhiiggii clothkii ayaa xoog u xiran oo nerveskii ayaa meel kasoo bixin lahaa marka waxaa sameynaysaa waa la socdaa I know gabdho socon karin oo sakraad gaaraan oo laakiin isqasab aan ku dhihi lahaa adeena kuu fiican tahay markaa qaadatid hadda intaa kasoo hadlaayay oo kale halka aad saaratid maxaa la dhahaa masaajir samaysatid biyo kulul soo dhex gashid waxyaalo badan ayaa iska dareemaysaa oo caafimaad ah long walk 30 daqiiqo soo soco ama hal saacadood soo soco iyadana waxay kaa caafinaysaa waxaa ka dareemaysaa waxa keena waayo caafimaadka iyo reliefka ilaa caafimaadka bixiyo waxaa kaloo fiican la dhahay markaas inaa cuntid cuntooyinka lightka oo fudud cuntooyinka oo maxaa la dhahaa badan ama maxaa la dhahaa oo culus iska ilaaliyaan dhihi lahaa waqtigaas ay gabadha ku jirto caadada waxaa kaloo fiican gabadha la dhahay markaas xanuunkaas ay dareemaysaa lahay inay qaadato vitamiinyaashan badanaa dadka vitamiinyaal badan ka maqanaa jiro tabletkan qaadanayo maxaa waaye tabletka qaadanaysa waxay B6 qaado si fiican u dhegeyso B1 qaado vitamin E qaado omega 3 files qaado calcium ka qaado magnesium ka qaado calcium xitaa caana qaadan kartaa maxaa la dhahaa magnesium ka cuntooyinka hadda ka hor aan kasoo hadlay qaadan kartaa so waxyaalo kale waxaa jiro aan kusoo dari karno exerciseyaal oo lugaha kor loo qaadayo waan kusoo dari doonaa oo xanuunka ayay iyadana kaa caawinaysaa so kuwan intaan hadda waxaa waaye sida naturalka ah oo uga bixi kartid xanuunka markuu ku haayo aad ku caafimaadi kartid waaye waxyaalo waxaa jiro marka aan la rabo inaa iska ilaalisid isagana waan ka hadli doonaa insha allah inigoo maxaa la dhahaa mahadsan marka haddaa isku aragtid haddaa waxaan kasoo hadlay haddaa isku aragtid kaadhka guduudka waa red flag ka lahaa waxyaalahan oo kale aan ka hadli doono haddaa isku aragtid waa inaad dhakhtarkaaga wacatid ama sida ugu dhaqsaha badan inaad dhakhtar u tagtid oo la hadasid because xaaladda hadda markaas waxay noqonaysaa xaalad adag ayay noqonaysaa haddii waxaa la dhahay oo ayaamo soo kici weysid oo iskuulkaagii shaqadaadii waxyaalahaagii dhan uu kaa reebo then waa red flag waayo waa inaa isbitaalka aadi ama dhakhtarkaaga la xiriirtid waa la dhahay haddii waxaa la dhahay xanuunka qaadatay benkila biyihii kulula qaadatay exerciseka ay samaysay waxba kaa bixi weysid isagana dhakhtarka inaa la hadashida la rabaa haddii aad isku aragtid xinjiro badan oo kaa soo daadanayo iyadana ma fiicna waxaan dhihi lahaa isbitaalka dhakhtarkaaga aad actually soomaalidana waxaa arkay run ahaantii gabdhaha soomaalida ayaan la hadlaa meel kastay joogaan waxaan wax yar ka dhiganaysid wax weyn ay kugu noqonaysaa badanaa gabdhaha oo markaan arkay oo okay ilaahay ayaa ilmaha bixiya oo ilmaha ilaahay ayaa ka imaadaan laakiin xanuunadan zaan u badan haddaa isku sii daysid hadhow sida lagaaga daawan lahaa okay ilaahay wuu kaa bixin karaa hal mar laakiin ha isku fiirsanaan ku dhihi lahaa hadhow waxaa arkaysaa dad
waxba ka soo qaadi jirin oo hadhow markay guursadaan dhihi lahaa hadda ogaan lahaa waxaan mar hore isbitaal tagi lahaa iska daaweyn lahaa soo marka ani dhinaca medicalka gudaha ma gelin dhinaca kor le ka hadlay ogaada asxaabtaya soo waxaan ku dhahayaa haddaad isku aragtid ayaamo badan inaa kici karin oo shaqadaada aadi karin oo iskuulkaaga aadi karin oo kor madax u qaadi karin isbitaalka aadan ku dhihi lahaa la xiriir daktarkaaga haddii waxaan exercise wixii dhan aan soo sheegay aad samaysan weli xanuunka ku haayo isbitaalka haddii dhiig xinjiro kaa daadanayaan isbitaalka aadan ku dhihi lahaa haddii shubmaysid oo laba dareynaysid oo matagaysid iyadana daktarka aadan ku dhihi lahaa waxba ha yarsan Cadada waxay qaataan maxaa la dhahaa wax buskud baan ma laha ma ogi anima ka saayo daawooyinka qaadan daawooyinkan farmashiyaashka doonaysiin waxaan dhihi lahaa ka taxadar caafimaadkiina because waxaan you don't know long time waqti dheer hadhow meelna kuma geynso xanuuno badan ku soo baxayaan waxa kale waxaa jiro infection maybe infection haduu leedahay xitaa xanuunahan kale ugu jira isbitaalka aad waa lagu soo baarayaa hadhow waxa lagu siinaa daawooyin caadi noqonaysa haddii qandho badan isku aragtay sidoo kale isbitaalka aadan ku dhihi lahaa haddii oo meelahan maxaa la dhahaa gabdhaha ka saaya meelahan xulusta meesha ka hooseyso meelahan kabska ay zayd ku xanuunayso isbitaalka aadan ku dhihi lahaa haddaa maxaa tahay waxaa la gabdhaha discharge ka soo baxo dheecaan ayaa jirkooda ka soo baxo hoosta haddii dheecaankaas uu zaa'id yani maxaa la dhahaa urtiisa zaa'id ay tahay waxaan ku dhihi lahaa isbitaal aad haddana qof okay maxamed kaas uraa lagu dhaho run ahaantii caafimaad waayo maxweynan qarina ma aha waxaan ku dhihi lahaa isbitaalka aadisa ugu dhaqsaha badan because waxa la yaraysta maaha soo hadda waxaan kuu sheegayaa waxa oo maxaa la dhahaa oo haddaa aragtid iska yaraysaneyn isbitaalka aadisid hadda mar dhow waxaan usii guudgalaynaa insha allah waxyaalaha aan rabo inaan iska ilaynaa cuntooyinka aad iska ilaalinaysid markaa dhiiga qabtid because cuntooyin waxaa jiro iska cuni karin waxaan kasoo hadlay dhiiga markaa qabtid ama caadada oo qofka ku xanuunsada ayaan ka sheekeynaya cuntooyinka oo fudfudud cun cuntooyinka oo culeyska iska ilaali cuntooyinka oo waxaa kale oo iska ilaalisaa oo saliida leh ma ku fiicna mandooryada dhan waxay ahaato kuma fiicna cuntooyinka carbohydrate-ka ma ku fiicna cuntooyinka cad iska ilaali kula kafeega iyo wax kasta oo sugarin oo wuxuu tahay marka okay gabdhaha dhiig qabno ani xitaa waxa crave gareyna wax macaan ah maanta wax raba chocolate ina cuno wax iskor la ina raadiyo actually waxa la dhahay way ku xun tahay soo ka carar biyo badan in cabtida laga rabaa marka kafeega shaax soo galaayo waxa soo galaayo shaax kala jiro aan ka hadli doono isagana u fiican intaan hadda waa wax iska ilaalin lahayn ayaa lahayd cuntooyinka sokorta ku badan tahay cuntooyinka saliida ku badan tahay cuntooyinka oo culus iyo cuntooyinka iska ilaalisa cad iyo cuntooyinka cusbada ku badan tahay asxaabta iska ilaaliyaan dhahaya gabdhaha ayaa la hadlaaya soo marka maxaa ii fiican waaye hadda waxaa usii gudagalaya cuntooyinka u fiican cuntooyinka ku fiican waxa ku fiican aan dhahaya cuntada ugu horeysa aan ku dhihi lahaa aan kugula talin lahaa waxaa waaye biyo badan cab biyaha markaa cabtid naafskaaga wixii dhan furfurmanaayo adoo dhan waxaa dareemaysaa I know qofka labalabuu dareemaa qaara oo matag rabaa laakiin biyo badan cab aan ku dhihi lahaa haddaa biyaha qawowga rabinna biyo qanda cab aan ku dhihi lahaa haddaa biyaha qanda cabi lahayn waxaan ku dhahayaa sheex waxaa jira dakawr aan soo sameeyey oo sheex oo harbal ah waaye waxaa samaynaysaa liin dhanaana soo qaadanaysaa xabad waxaa soo qaadanaysaa maxaa la dhahaa sinjibiisha qoyan iyo waxaa soo qaadanaysaa iyo huruuda qoyan sheexa ku karsanaysaa wax yar oo sokor ku darsan hadii kale sokorta iska daa ku dhihi lahaa malaba ku darsan kartaa iyo wax yar oo caleen ku darsanaya hadhow markaa ka qaadid liin dhanaantaada cab shaaxaas daa marka uu ku soo socdo dhiigaaga aabyaal ayaa jira asxaabta aabka ila fiiriya aabkaaga hadda week ka hor aad bilowdid shaaxaagaas xanuun dhan mugdan isoo dhiigaaga nadiifkaaga imaada arkaysa laakiin adoo kala darsan hadduu ku imaado xanuunahaas wixii horey reasonyaashii hore aan kasoo hadlayna aad ku jirtid dadka qabo dadka dhulka lagala noqonaysaa badmaga shaaxaas cabaan ku dhihi lahaa waxaa kale u fiican aan dhahay dadka oo marka oo uu dhiiga ku haayo cuntooyin ku fiican ayaa hadda oo dietka ayaa hadda rabaa inaan gudo galo waxaa u fiican shaaxaaga inaad ku karsatid dhagayare iyo qorfaha iyo sinjibiisha aad u fiicanta asxaabta cunto oo lightna waa cuni kartaa cunto oo heavy ah cunina ku dhihi lahaa because cuntooyinka heavyga muu fiicnaa lahay cuntooyin kale u fiican waxaa waaye qofka marka gabadha oo dhiig caadada ay ku xanuunsato waxaa kamid ah babayga aad u fiican yahay babayga maxaa waaye vitamin C ayaa ka buuxan vitamin C-gana
difaaca jirka ayuu kor u qaadaya xanuunka ayuu la dagaaltamaya vitamin A na wuu leeyahay babayga cuna ku dhihi lahaa waxaa cuntaa bariiska oo brownka cuna ku dhihi lahaa vitamin yaasha oo ku jiraan vitamin B6 cuntooyin laga helaa jira iyagana sida keliyaha laga helaa xitaa cunan dhihi lahaa waxaa kaloo cunta isoo tablet haddaa istina cuna ku dhihi lahaa looska u fiican cuna ku lahaa bank seedka cuna ku dhihi lahaa magnesiumka wax dhan cuntooyinka magnesium ku jiro dhan cagaarka laga helaa cuna ku dhihi lahaa walnutska cuna ku dhihi lahaa olive oilka cuntada karso olive oilka xitaa waxaa samayn kartaa markaa bahashaan ku dhahay saaratid meesha iyadoo jirkii jira qandac ah waxaa samaynaysaa olive oilka waxaa waay saliid saytuunka waa ku masaaj garaysan kartaa ama cuntada lagu karsadaa ama xitaa vitamin E-ga waa cuni kartaa iyo saliid narijinka cuntada lagu karsan kartaa cuntooyinkaas dhan waa cuntooyinka u fiican qofka gabadha markay dhiigga le ku xanuunsato maxaa la chickenka ama doorada way u fiican tahay malayga wuu fiican yahay cunto greenska dhan u fiican vegetableka u fiican cuntooyinka ironka laga helo ha cunto ironka waxa kale laga helaa caanaha way u fiican tahay ironka waxa ka heli kartaa maxaa la dhahaa malayga waa laga helaa ironka waxa kale ka heli kartaa xitaa cuntooyinka oo greenska dhan ka heli kartaa waxa kale ka heli kartaa ironka xitaa kaliyaha kale heli kartaa so ironka cuna ku dhila because ironka waqtiga oo dhiigga qabtid oo waqtiga la rabo inaad aad iskaga taxadartid haddaa waqtigaas aad feelgaraysid inaad iska taxadartid hadda waxyaalo badan kugu soo baxay jilba xanuun ilka xanuun ciid xanuun waxaas dhan kama bixi kartid soo markaas dietkaaga inaad hagaajistaa lagaa rabaa mushaarada xitaa caana lagu darsada waa la cabaa caanaha waa la cabaa iyagoo qandaca la cabaa waayo because markaas waa marka oo zaaid loo u tahay inaad kor isku boost garaysid waaye oo vitaminyaashaada waxaa dhan aad qaadatid vitaminyaashaada dhan marka qaadan kugula talinaya vitamin A gaaga qaado vitamin B gaaga qaado because zinc gaaga qaado waxaas dhan kor ayay kuu maxaa la dhahaa ay kuu qaadaysaa wax si fudud ayaa uga baxaysaa cuntooyin kale oo fiican oo waxaan ku dhahayaa marka dhiig qabtid cunlaysidna waxaa ku fiican cuntooyinka oo biyaha ku jira cuntooyinka oo qaleelka iska ilaaliya because qaleel hadduu jirkaaga noqdo wixii dhan iskugu kaa dhigay xanuunka kusii zaa-idaynayaan soo marka maxaa waye cuntooyinka aan cunayo iyadana avocadada ku fiican tahay waxaa kaloo ku fiican mooska ku fiican peanut la barsada xitaa uu fiican yahay waxaas dhan cuna ku dhihi lahaa biyo badan cabaan ku dhihi lahaa ayno biyaha markay gabadha dhiigku leedahay aad u adagtay laakiin waxaan ku dhihi lahaa isku qasab cuntooyinka oo biyaha laga helo orangeka kamid ah xabxabka kamid ah cucumberha kamid ah ama qajaara af soomaali lagu dhahaa ayaa kamid ah beriberiga canabka buluuga waa lambawan cuna ku dhihi lahaa strawberryga cuna ku dhihi lahaa waxaasoo dhan waxay u fiican yihiin biyay leeyihiin waana fruits vitamin badan ayay wataan xanuunaha waa dhaqsaa ka boodaysaa then haddaa meesha jirki qaleel oo maatanan meel jiiftid oo xanuun badan kugu waxeeyo waxaan qolo ku dhihi lahaa badso caanaha dairy productiga oo dhan badsaan ku dhihi lahaa looska aad u fiican yahay haddaa xitaa toos u cuni karin waxaa samayn kartaa mushaariya lagu shiitaa ama juice lagu shiitaa waa la cabaa greenska oo dhanna cunna ku dhihi lahaa exerciseyaal la jiro oo marka qofka oo dhiiga u qabo oo la sameeyo exerciseyaashan waxaan rabaa inaan kusoo daro insha allah si gabdhaha hadha uga faa'iidaystaan because dad badan anigu igu doo aan zaaid iskugu dhownahay oo xanuunahan haysana arkay marka wax badan aan lahay shukri xanuunkaas dhiiga ma ka hadashid gabdhaha markay xanuunsan yihiin waxa looga bixi karo marka waxaan dhahay insha allah waan ka hadli doonaa exerciseyaashaasna iyagoo aan kusoo daraya insha allah because waxay hadhow waa samayn kartaa wax weyn oo adag ma aha waa ku dhinaca dhabarka iyo kaa caawinaysaa iyo meelaha isgalaani kaa caawinaysaa iyo dhiiga badan iyo soconaya iyo waxaas dhan kaa caawinaysaa dadka dhiiga qaar ku dhahay dhiiga miiga soo baxay wuu ku taagan yahay that's why waxaan u dareemaya soo marka waxaan ku dhahayaa ani intaan kaa fagareyn kara waan kaa fagareeyey wax kale dhakhtarkaaga ayaa kala kaashanaysaa intaas ayaan kusii gudabaxaya waxaan rajeynayaa inaa wax ka faa'iideen gabdhaha soomaalida walaalayaasheeda meel kasta joogto meel kasta joogteen sheegareeya sidaa wax uga faa'iideynayana channelkan noogu koro meesha nagala socotiin waa channelkeeni xarunta cuntada caafimaadka waana walaashin shukri aadan buule wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu